saacada laga bilaabo waxaan u diyaar garoobaynaa dagaal waxaan u diyaar garoobaynaa difaaca dalkayaga waxaan leenahay beelaha dhulbahante dal nagaba dhaxeeyo fiqifiliyay ku leeyihiin gobolka fiqifiliye way joogaan xasan shiikhow hadda dagaalada abaabulayso ergaaba waxay ka dhigan tahay guriyihii aanu ku lahayn muqdisho waxa weeyaan colaadii markaan ay dhacday isaaq xoolahoodii way iibsadeen shirka barameed wuxuu ahaa mashruuc uu ka dambeeyo xogayaal markaan u noqonay xasan sheekh maxamuud isagoo uga jeeda doorashada la marin habaabinayo ee uu ku sheegayo qof iyo cod inay ka suurowdo beelaha warsangeli iyo dhulbahante maanta waxaanu diyaar u nahay tiknika qaybsateen mid ka badanina waa joogtaa mid afarlaabkeed leegna waa keenana dhaqaalaheedina waa leenahay taladeedina waa leenahay ceerigaaba meel keligeed dagaal la isugu soo urursado ma noqon doonto beelaha abtiyada iyo dhulbahante xisaabtu ka khaldan tahay colaadda waxay ka bilaabmi doontaa oo dhaqso uga bilaabmi doontaa min qorolugud ilaa iyo ceerigaaba deegaanka ceerigaaba ina kama dhaxeeyo maadaama ay go'aan ka qaateen beelaha dhulbahante iyo beelaha warsangelina la qaateen ergadii waxaanu fasaxaynaa aan leenahay raali naga ahaada ergadii absame waxaanu fasaxaynaa madaxweyne deni waxaanu fasaxaynaa madaxweyne ciro iyo wafdigiisa iyo dawladdiisa dalkayga dadkayga awoodaan ku difaacano waan leenahay ceerigaabana maanta calan aan calankaas Soomaaliland ahayna laga taagi maayo cidda mashruuca ku soo qaadatay dadkooda wajigooda iyo dhabarkooda inay lacag ka sameeyaan oo qandaraas ka soo qaatay xasan sheekh maxamuud ciddaasay nabadu eersan doontaa waxaanu diyaar u nahay gacan kasta iyo dhirbaax kasta aanu kaga jawaabi karo ficilada mana sugi doono inta la isu soo kaayo urursanayo 200 oo tiknika la urursanayo hub la urursanayo nabadan annaga naga imanayno cid idin keeni karaysaa danina idin keenaya madaxweyne ciro iyo dawladdiisuna idin keenaysaa ma jirtay dadka deegaanka ah wada digtaan ayay ahayd inaan nabadda ka doontaan wada khaldan ma marteen beelaha harti way garanayaan nabadda wadada loo maro tii hore aanu istilay iyaga nabadda keenay iyaga go'ayaasha noo taagay caawa halka waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayo shirkii beelaha dhulbahante iyo maxamuud harti warsangeli ugu soo dhamaaday qaybo kamida oo iyaga kamida ugu soo dhamaaday magaalada Badhan ayaan doonayaa inaan kelmad ka ilaahdo waxa jirtay runtii sida la wada ogyahay in hore isimada beelaha absame ee garaad kulmiye uu hogaaminayay ay hargeysa tageen isu xil saareen nabad inay ka dhaliyaan mandaqada hore ay u tageen qoladii ay u tageen reer laascaanood go'aankii hore ka soo keenay wuxuu ahaa nabad waxa ka daba yimi go'aan kale oo colaadeed oo u gudoomiyay garaadka guud ee beelaha dhulbahante oo leeyahay saci xagga hore aanu ka gowracnay xagga daba way laga gowracaa colaad waxaan ahayn oo ina dhiqi karaan ma jirto taasoo ka keenay waxa ka dambeysay falal argagaxle oo dad reer miyiga oo xoolahoodii la joogta xoolahoodina la boobay tiknikana lagu laayay iyagoo aan dagaalna qayb ka ahayn dadku miyiguna wada daaqayo wada noolaa baadida la isu celinayay ceelkana laga wada cabeeyay isla maalintaa ka bacdi waxay soo beelaha reer Soomaaliland iyo ergadii garaad kulmiye oo hargeysa isugu yimi waan ka xumahay lagama tacsiyeedeyn dadkii dhibtaas ku dhacday lama soo qaadin wax jawaabaho laga bixiyana ma jirin haddana waxa lagu celiyay nabad baanu ka haynaa ragii caynkaas ahaa arinta caynka ah ee lagu sameeyay dadka reer xoolo dhaqatada ee xasuuqa ee xanuunka badnayd waxa ka dambeeyay oo raacday colaado ka dambeeyay oo dhacdhacay oo arintaasi ku sibir lahayd baa dhacay dhimashooyin badan baa dhacay tii daraada u dambeysay qorlugud lagu soo weeraray iyadoo ummaddu iska hurudo oo dagaalku ka dhacay ayaa ku xigtay waxaan leeyahay maadaama maanta shirka barameed oo runtii aan aad iyo aad uga xunahay
saldanada warsangeli oo aan looga baran inay colaad ku dhawaaqdo inay go'aamiso ummaduna kalsooni ku wada qabtay siday og yihiinna aanan daraf ka ahayn beelaha reer Sheekh Isaaq daraf ka ahayn colaadii ceerigaabo ay ka bilaabeen beelaha dhulbahante ay hoobiyaha iyo qoryaha sniperka inta magaalada la soo galeen oo la ogolaaday inay soo galaan ay ku qaxiyeen iyana warsangelina kaga qaxeen annagana maataydeedii ku qaxday dadna la isku farasaaray dagaalku labada jeer oo ka dhacay markii hore shirkoodii hore hadaftana waxa weeyaan waxay garab ka saareen iyadoo aan looga baran iyo inay cidna raacaan beelaha warsangeli wax ugu cusub oo inay raaceen eedii u soo jeediyeen meel aanay ool inay ka soo jeediyeen dadkii dhibaatada dalka ka dhaliyay waxaan doonayaa maanta shirka barameed wuxuu ahaa mashruuc uu ka dambeeyo xogayaal markaan u noqonay xasan sheekh maxamuud isagoo uga jeeda doorashada la marin habaabinayo ee uu ku sheegayo qof iyo cod inay ka suurowdo beelaha warsangeli iyo dhulbahante arrinka nabad baran lagama wada hadlayna waxay ahayd qandaraas lagu soo qaatay in mashruuc lagaga qaato xasan sheekh waxaan ognahay garaadadii dhulbahante ee yimi go'aankii ay keeneen shirka ceerigaabo in dagaal lagu galo baaqyadii nabadeed ee 10 jeer ee ceerigaabo aanu ka jeedinay iyo kii u dambeeyay inay wafdidii garaad kulmiye nala joogtay ee aanu ceerigaabo ilaa hargeysa isimada dhaqanku kaga jawaabeen intaba shirku uu baal maray mashruuca qandaraas waxay keeneen isimadaasi xasan sheekh inuu ka caawinayo oo siinayo rasaasna hadda soo siiyey rasaastii ceerigaabo lagu dili lahaa la isku dili lahaa dhiigu ku daadan lahaa magaalada ceerigaabona dagaal uga qabsoomi lahaa inuu isagu bixinayo waxaa lagu qaybsaday halkaa gaadiid 190 tiknika shirka intaan xogaalka rasmiga ka nahay ee qodobada aan la sheegina dad nabadda daneynayay oo aan filayn inuu shirku soo dhacayo baa nala wadaagay 190 tiknika baa la qaybsaday 70 warsangeli baa la saaray 120 dhulbahanta qaatay colaad muddo leh baa halkaa laga soo jeediyay go'aan lagu iskula qaatay qandaraaskeedana uu bixinayo xasan sheekh markaa waxaan leeyahay isimadii beelaha absame ee garaad kulmiyaha uu hogaaminayay waxaan leenahay nabadda walaalayaal noo keenteen anagoo idin ixtiraamayna ma hayno mana muuqato go'aankii u dambeeyay aanu islahayn malaa dhulbahanta waanu arkaynay waanuna filaynay warsangeli maskaxdii looga bartay iyo dhaqankii suubanaa ee looga bartay baa ka soo bixi doona waxbay ku sixi doonaan qandaraaskaas uu noqday waxa cadaynaysa inuu qandaraas ahaa aanu go'aan harti ahayn oo daarood go'aan u qaatay ahayn ee xasan sheekh dabada ka riixayo raggii meesha fadhiyay baa noo waramay waxaana tusaysa wadadaanu isdhaqan naqaana beelihii markay dagaalka tahay aan looga maarmi jirin ee warsangeli ama maxamuud harti hadday tahay dubays hadday tahay aadan siciid hadday tahay nuux cumar hadday tahay gaashaanbuur iyo hadday tahay bahwadaagta reer saalax iyo bahwadaagtooda reer xaaji iyo gaashaanbuurtooda beelihii aan looga maarmi jirin dagaalka lagumana casumin golaha qandaraas cid gaari qaadatay bay ahayd waan la socnaa tala warsangeli oo meesha ku urursani ma ahayn qandaraas ay qaateen beesha garaad cabdalle ayay ahayd waxaan leenahay annagu cid kasta oo nabad doonaysa diyaar baanu u nahay ma odhan nimankaasi mar qura nabad may soo qaadin waxay soo qaadeen ciidan inay urursadaan go'aankooda u horreeya waxa weeye inay ka bilaabaan jiidaha oo beelaha isaaq laga tirtiro dhoob ilaa dhuur madare ilaa ceerigaabo oo dhabarka looga wareego ceerigaabo in la dhaafiyo isaaq waxaan leeyahay arrinkaa aad halkaa ku qaadateen hadduu suuroobo iyo riyadaa aad qaadateen maanta waxaanu diyaar u nahay tiknikaa qaybsateen mid ka badanina waa joogtaa mid afarlaabkeed leegna waa keenaynaa dhaqaalaheediina waa leenahay taladeediina waa leenahay annagaan isballaadhin beelaha isaaq ee reer isaaqa idinla deegaanka ahi waxay u diyaar garoobayaan colaadda u diyaar go'aamiseen nabadda aad diideen baaqyadii aanu ceerigaabo iyo ka jeedinay meesha la yidhaahdo hargeysa ergadii shariifka ahayd ee garaad kulmiye iyo ay hogaaminayeen sheekh muxyidiin iyo ragga la garanayo ee sharafta badan ee allaasheen
colaadda aad badan ka soo qaadateen waxaan leenahay waanu u talahaynaa waanu u fadhinaa mar haddaa albaabkii nabadda xidheen waxaan leenahay ceerigaaba meel keligeed dagaal la isugu soo urursado ma noqon doonto beelaha abtiyada iyo dhulbahantee xisaabtu ka khaldan tahay colaadda waxay ka bilaabmi doontaa oo dhaqso uga bilaabmi doontaa min qorilugud ilaa iyo ceerigaabo waxaan leeyahay haddaad dadkiina qandaraas ku soo qaadateen xasan sheekh bixiyo sife kasta ha idiin geysee waxaan arkayay nin garaadoo hadlay oo shirka ka hadlay oo yidhi ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa waxaan arkayey nin la yidhaahdo sheekh aadan weli oo intuu fidoodo yidhi dhiigga reer sheekh isxaaq waa ibaax annaga culimmadii uu hogaaminayay sheekh xasan sheekh cali warsame ee noo timi dadkaa dhiiggooda waa xaaraanay nabad kula noolaadaa la yidhi heshiiskii afar beeloodkii hore aanu ku fadhinay annagu kamaanu bixin magaaladana maanu weerarin waxaan doonayaa inaan cid walba u sheego haddaa janno lagu helayo iyo haddii aynu cadaab ku mudanayno go'aankaa qaadateen ee qadhaadh ee suldaankii nabadda ee suldaan siciid cabdisalaam go'aamiyey waanu u ladhaynaa waanuna idinla qaadannay xukuumadda somalilan waanu ognahay waxaan aad uga xunnahay inuu shirkaasi dhaawacay nabaddii madaxweyne cirra uu ka shaqaynayey ee shalayto wasiirradii iyo xildhibaanadu soo diray ceerigaabo kaga dhawaaqeen waxay nabaddaasi dhaawacday qowlkii shariifka ahaa ee madaxweyne deni uu kaga dhawaaqay meesha la yidhaahdo boosaaso ee uu nabadda ku jeediyey oo yidhi war ceerigaabo nabad ha loo ogolaado cid kasta oo nabadgelyada danaysa waxaanu sheegaynaa go'aankaas inaannu xaggayaga nabad u fadhinay saacaddaa laga bilaabo waxaanu u diyaar garoobaynaa dagaal waxaanu u diyaar garoobaynaa difaaca dalkayaga waxaan leenahay beelaha dhulbahante dal nagama dhexeeyo fiqifiliyay ku leeyihiin gobolka fiqifiliye way joogaan ceerigaabo hadday guryo ku leeyihiin guryihii aanu ku lahayn muqdisho xasan shiikhow haddaad colaadda abaabulayso ceerigaabo waxay ka dhigan tahay guryihii aanu ku lahayn muqdisho ee kaasa balballaare iyo hodan iyo bakaaraha iyo howlwadaag aanu ku lahayn waxa weeyaan colaaddii markaan ay dhacday isaaq xoolahoodii way iibsadeen waxaan leenahay 50 kilomitir baa dhulbahanta ceerigaabo u soo jiraa warsangelina wuxuu soo jiraa 65 kilomitir magaalada cidina idinkama sheegan intaasaa u jirtaanna ma ogolaan waxaanu ogolaanay afar beelood inaynu ku qaybsanno maanta waxaan idiin sheegaynaa deegaanka ceerigaabo ina kama dhexeeyo cid kasta ha maqasho xasan sheekh maxamuudow deegaanka ceerigaabo nagama dhexeeyo guryaha uga dhisan hadday iibsanayaan iyo hadday halkoodaa u dhisnaanayaan oo kiraysnaanayaan diyaar baanu lanahay laakiin mar hadday go'aamiyeen inay ceerigaabo dagaal ku soo noqdaan oo na xasuusiyeen dhacii iyo dagaalkii dhowr iyo 80kii ceerigaabo ay ku soo qaadeen maantana kii mid la mida ay soo qaadayaan qurba joogga iyo dadka ganacsatada ah iyo cid walba waxaan leeyahay dhaqaalihiina fura dalkiina iyo dadkiina saa u difaaci lahaydeen harti qura ma aha dhulbahantiya warsangeli ma aha xasan sheekh baa hubaynaya xasan sheekh baa dagaalka iyo dhiigga daadanaya ka shaqaynaya doorashuu ku doonaya deni iyo puntland inuu kula dagaalamuu doonaya nabaddii caana waan jeclaayay candho dameeraad markay galeen baa nacay maadaama raggii aanu haweynaa ay ugu horreeyeen garaad cabdulaahi garaad saleebaan iyo suldaan siciid cabdisalaan iyo raggii dhiggood ahaa ee garbahooda ahaa ay colaad qaateen oo ay taladay u guurtayeyn lahaayeen janaanadiisu soo hor fadhiisiyeen beelaha reer sheekh isxaaq waxaan leeyahay xidha albaabada nabadda dalkiina iyo dadkiina difaaca maalinta nabad loo baahdo shirkaa waxaan idiin sheegayaa in la isweydiiyey war nabad wax ma ku doonaa ceerigaabo inagoo ka maqan nabad ceerigaabona cidi kama saarin iyaga iskoodka uga tegey iyagaa xabadda la dhacay oo ku soo duulay waxaan leeyahay maadaama ay go'aankaa qaateen beelaha dhulbahante iyo beelaha warsangelina la qaateen ergadii waxaynu fasaxaynaa aan leenahay raalli naga ahaada ergadii absame waxaanu fasaxaynaa madaxweyne deni waxaanu fasaxaynaa
madaxweyne cire iyo wafdigiisa iyo dowladdiisa dalkayga dadkayga awoodaan ku difaacano waan leenahay ceerigaabana maanta calan aan calankaas Soomaaliland ahayna laga taagi maayo cid kale oo wax kale oo lagaga wada hadlayaana ma jirto wadada ay ka rogeen raggii nabadda lagu tuhmayay teedii baanu ka rogaynaa waxaan leenahay meel kasta joogtaan waxaad u diyaar garowdaan colaada iyo duulaanka ilaa dawladda federaalku wado sida dalkiina iyo dadkiina iyo maatadiina iyo xoolihiina u difaacan lahaydeen waxaad arkaysaan inaanay beelaha dhulbahante ama SSC la baxeen ama khaatumaha la baxeen inaanay nabad diyaar u ahayn iyadoo erga noo timo beeli absama noo yimaadeen oo dadku wada nool yahay waxa la bilaabay ummad xoolaheedina in la boobo lana laayo anagoo tiknikadeedii iyo tii dawladdu midna aanay u dhaqaaqina toodii ay madaxa ka toogatay naxariis darrada dhacday garaadadii markay yiraahdeen hal la sii daayo war nin dhaawac ahaa oo 4 meelood ka jabnaa oo la qaatay oo dadkiisi hadda weysto ninkani nin dagaal ku jiray maaha war reer miyigii wada yaalay war garaadadii yaadan yeeynaan dadkeena u ibaaxayn in dadka reer miyiga ah inta gawaari la jiirsiyo la maxbuus gareysto xukuumaddii halkaa ka jirtay ee SSC ay magacowdeen ay dhisteen waxay go'aan ku gaadheen inaan ninkaa lana kabin lana daweyn dhakhtarkana uu ku dhinto maadaama ay halkaa istaagantahay inaanu dadkayga reer miyiga difaacno inaanu dalkayga difaacno inaanu dantayada difaacno diyaar baanu u nahay waxaanu leenahay cid walbana leenahay dhibaatada halkaa ka socota ilaahayna wuu ogyahay cidda wadda cidda mashruuca ku soo qaadatay dadkooda wajigooda iyo dhabarkooda inay lacag ka sameeyaan oo qandaraas ka soo qaatay xasan sheekh maxamuud ciddaasay nabaddu eersan doontaa cidda guryahoodii oo nabada xabadda la dhacday dadka ee dariskii iyo eelkii iyo qaraabadii iyo riximkii la dhacday ayay eersan doontaa cidda intay u shirtay ee u guurtiyeysay go'aanka colaadeed soo saartay eersan doontaa nama nafsiyo doonto nabadaasi waxaanuna diyaar u nahay gacan kasta iyo dharbaaxo kasta aanu kaga jawaabi karo ficilada mana sugi doono inta la isu soo kaayo urursanayo 200 oo tiknika la urursanayo hub la urursanayo inaanu eegano oo sugnana ma dhacayse waxay noqonaysaa in bisika loo qabto colaadaasi raggaasi wado waxaanu leeyahay hadday shahiid tahayna inagaa shahiida haddii janno lagu helayana inagaa shahiid ku ah haddii cadaab cidi ku helaysana ninka ibaaxaynaya dad islaama oo daris iyo helay dhiigiisa leh ilaahay baan ugu dhowaanayaa isagaa ilaahay wuxuu ka ogyahay aad iyo aad baan cid kasta u salaamaya oo hadalkaygaa dhegaysanaysa waxaan leenahay oo ku soo gebagabaynayaa waxaynu u diyaar garoobaynaa duulaanka iyo difaaca maatadeenna iyo dadkeenna lagu soo wado dadkeenna miyiga lagu wado ayaynu u diyaar garoobaynaa waxa weeyaan hadalkayga haddaan gebagebo u yeelo oo gebagabeeyo shirkii baraneed waxa ka soo baxay 3 qodob ay midna Puntland kula hadlayeen ay leeyihiin waxaanu taageersanahay dagaalka buurta midna ay ku go'aamiyeen ceerigaabo inay dagaal ku gelayaan aanay wax wada hadalaya isxaantoona aanay ka gelayn cidna kala xaajoonin nabadgelyada midna waxay u jeediyeen garaadadii garaad kulmiye ragiisii waxaan leeyahay qodobada 3 qodobood waxaan khuseeyaa anaga kay dagaalka soo qaateen ka garaad kulmiye ay u jeedinayaan anaga nama khuseeyaa garaad kulmiye nabadi kala ma dhaxayso deegaana kala ma dhaxeeyo ergay ahayno ergadoodiina waa diideen waxaan leeyahay 8 baaq beelaha reer Sheekh Isxaaq iyo Soomaaliland teedii ama dir harna yiraahdeen waqooyi ama harna yiraahdeen isaaq harna yiraahdeen 7 jeer baanu ilaa ceerigaabo ilaa Hargeysa aanu kaga hadalnay baaq nabadeed way ignore gareeyeen macnaha waxay halkaa ku cadaysteen inaanay annaga nabad mar nagala hadlaynin waxa weeyaan waxay soo jeediyeen inay annaga qodobka quree naga xuseeyaa intay baaqyadeeda iska indhatireen wax leeyahay garaad kulmiye xaaja idan kama dhaxayso ragayagii dalka lahaa ee deegaanka lahaa ee aad hore nabadda ugu wada joogteen haddaa indhaha ka laliseen garaad kulmiye nabad uu samada naga dhaafiyo idiin imanaysaa wallaahi ma jirto nabadan annaga naga imanayno cidi idiin keeni karaysaa danina idiin keenaya madaxweyne Cire iyo dawladdiisuna idiin keenaysaa ma jirto dadka deegaanka ah wada digtaan ayay ahayd inaan nabadda ka doontaan wada khaldan ma marteen beelaha harti way garanayaan nabadda wadada loo maro tii hore aanu istilay iyaga nabadda keenay iyaga go'yaasha noo taagay maantana waxaan leeyahay wadada maraysaan waad ogtiin tii colaada tahay
waanu soo dhaweynaynaa go'aankaana waa idinla qaadanay aad iyo aad baad u mahadsantihiin